saddex imbaraatooriyadood oo sheeganaya inay yihiin imbaraatooriyadaha ama boqortooyinka adduunyada ugu da'da weyn oo kasoo qayb galay munaasabadan oo kale ahaa boqorkii Itoobiya Haile Selassie, boqorkii Giriiga iyo boqorka dalka Iran ayaa isla 10 sano gudahood aan ka dambaynin boqortooyadaas oo burburay, iyada oo lagu tilmaamay inay tahay cashadii ugu dambeysay ee boqorrada. barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadan doonaa xafladdii ugu ballaadhnayd uguna kharashka badnayd ee qarnigii 20aad ka dhacday adduunka. xafladdaasi oo lagu qabtay dalka Iran ayay ahayd mid soo abaabulay boqorkii dalka Iran ee boqor Shah, isagoo ku xusayay sanad guuradii 2500aad ee kasoo wareegtay aasaaskii boqortooyadii Iran. haddaba sanadkii 1971 dalka Iran waxaa lagu qabtay xaflad gaar ah oo aad u xiiso badnayd si loogu dabaaldego sanad guuradii 2500aad ee aasaaskii boqortooyada Iran. adduunkana wakhtigaas lama arag xaflad si heerkan oo kale ah ama kharash intan la-eg lagu bixiyey. xafladdan ayaa la keenay kuugaga adduunka ugu wanaagsanaa ee makhaayadaha raaxada leh caalamka. waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay cabitaano heer sare ah oo aan lagu xusin adeegyada kale ee gaarka ah. farshaxanada lagu qurxiyey goobta lagu qabanayay munaasabaddan ayaa ahaa qaar u eg qalcadihii Yurub ee qarniyadii dhexe. waxaa xiisaha leh wuxuu ahaa martida xafladda oo matalaysay madaxweynayaasha iyo hogaamiyaasha 65 dowladood oo kala duwan, boqorro, amiiro, shakhsiyaad magac leh, salaadiin, ganacsato iyo dad ka soo jeeda 5 qaaradood ee adduunka. goobta munaasabaddu ka dhacday ma ahayn qalcad qadiimi ah ama hudheel staaris ah. waxaa lagu abaabulay goob ku taala lama-degaanka dalka Iran oo laga dhisay taandhooyin waaweyn. haddii haddaba aad isweydiiso kharashka ku baxay munaasabadani intuu la egyahay, waxaynu odhan karnaa wuxuu ahaa kharash ka badan malaayiin ama balaayiin dollar, maadaama ay ku baxday oo ay galaafatay boqortooyadii dalka Iran ee uu madaxda ka ahaa boqor Shah, oo ah ninkii soo aabagaasimay munaasabaddan. si aynu u fahanno xaalka dalka Iran sida uu ahaa iyo waxyaabaha sababay in boqortooyadaasi dunto, aynu dib ugu noqonno sanadkii 1960-nadii. Iran waxay yeelatay boqortooyo dastuuri ah oo uu xukumo Shah Maxamed Pahlavi oo la baxay magaca boqorkii boqorrada. Shah wuxuu ka mid ahaa ragga adduunka ugu taajirsan wakhtigaas, waxaana awood buuxda u lahaa dowladda maadaama uu awood u yeeshay magacaabista ra'iisul wasaaraha. waxa kale uu awood u lahaa inuu kala diro baarlamaanka, inuu abaabulo ciidamada kuna dhawaaqo dagaal. waxaasoo dhan iyadoo aan cidina kula tashanin, maadaama ereyadiisii loo tixgeliyey sharci ahaan. isagu diyaar uma ahayn inuu la wadaago awooddan kama dambaysta ah cid kale. ka hor xafladdan ayuu Shah xilka ka qaadis ku sameeyey wasiiradii ugu sarreeyey oo dadkiisuna jeclaayeen. dalka Iran waxaa ka dhacay afgembi la doonayay in xukunka kaga tuuro boqor Shah wakhtigaas, inkasta oo ay badbaadiyeen xukunkana kusoo celiyeen ciidamada Iran oo ay taageerayaan Maraykanka iyo Ingiriiska. Shah muu aqoon waxaan ahayn raaxada uu ku noolaa, isagoo ahaa wiil uu dhalay boqorkii hore dalka Iran. waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay dalka Switzerland, waxaanu aad ula dhacay dhaqanka reer galbeedka iyo nolosha casriga. waxaanu ku andacoonayay inuu dalka Iran u bedelo waddan casriyeysan oo xadaarad leh, kana dhigo bulsho xor ah, haweenkana awood siinaya, isla markaana hagaajinaya heerka nolosha dadka saboolka ah. laakiin xaqiiqadu way ka duwanayd sidaas. xorriyatul qowlku wuxuu ka mamnuuc ahaa dalka Iran. cid kasta oo kasoo horjeeda xukunkana waa lagu ciqaabayay. waddankuna lagama aqoon wax xorriyad qowl ah iyo xorriyad madani ah, maadaama xukunka Shah uu ahaa maxaabiistii ugu badnayd ee siyaasadeed ee la xidho ay ahaayeen dadka damiir kale. dowladduna intii ay xukunka haysay way ogood tirada ugu badan ee xukunka dilka ah ee adduunka ka dhacay. boqor Shah wuxuu lahaa boolis qarsoodi ah oo dadka soo qabta afduuba, dilna u geysta marka ay doonaan. inkastoo Iran ay ahayd dal qani ku ah dalka shidaalka, haddana xaaladda dhaqan-dhaqaale ayaa aad u liidatay, maadaama ku dhowaad kala bar dadka ku nool dadku ay ku noolaayeen nolol saboolnimo ah. magaalooyinka badankoodu ma lahayn qaab dhismeed iyo kaabayaal dhaqaale. meelaha baadiyaha ah ee magaalooyinka ka baxsanna hadalkooda badda. waxaa liitay adeegyada caafimaad, biyaha iyo waxbarashada. Iran wakhtigaa waxay u baahnayd isbeddel aasaasi ah si kor loogu qaado heerka nolosha bulshada, loona hagaajiyo adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale. iyadoo xaaladda dalka Iran ee uu xukumo boqor Shah ay sidan u liidato, ayuu maalin ku fikiray inuu casuumo hogaamiyaasha adduunka oo ay ku jiraan boqorrada, madaxweynayaasha iyo shakhsiyaadka ay saaxiibada ahaayeen. xaflad gaar ah oo raaxa leh. Shah wuxuu rumaysnaa in munaasabadda gaarka ah ay noqoto mid lagu beego maalinta la xusayo sanad guurada 2500aad ee kasoo wareegtay aasaaskii boqortooyada Iran, si loo muujiyo quruxda dalkiisa, si uu dib ugu soo ceshado bilicdii ammaanadiisii luntay ee lasoo dhaafay, oo uu dib ugu soo celiyo xooggiisa sida dal xoog leh oo u dhigma awoodda reer galbeedka. sidoo kale fikraddan wuxuu u arkayey inay tahay munaasabad uu uga faa'iidaysan karo inuu dadka u tuso inuu la mid yahay boqorkii aasaasay boqortooyada dalka Iran. waxaanu magacaabay guddi gaar ah oo soo qabanqaabisa xafladdan uu macsuumiyadda ballaaran ku sameynayo oo lagu marti qaadi doono dad tiradoodu ay gaadhayso
600 oo qof, waxaanu bilaabay inuu hawsha sii wado muddo sanad ka hor maalinta la qabanayo xafladdan. Caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagnaa ayaa ahaa inaanu dalka Iiraan lahayn kaabayaashii uu ku suuro gelin lahaa hodheello ama qalcado waaweyn oo lagu qabto xaflad noocan oo kale ah, oo ku marti qaado hogaamiyaasha adduunka ugu caansan. Sidaa darteed, wuxuu ka fikiray si taxaddir leh in loo helo meeshii ku habboonayd, waxaana boqorka doortay in xafladdan lagu dhigo goob ku taalla saxaraha waqooyiga dalka Iiraan, gaar ahaan magaalada qadiimiga ah ee Takhtamshiid, oo ah magaaladii laga aasaasay boqortooyada Iiraan 2500 oo sano ka hor. Waqtigaa Iiraan waxaa ka jirtay biyo la'aan iyo harraad aad u badan, waxaanay ku ahayd laf-jab in la waraabiyo geedo fara badan oo loogu talagalay munaasabadda xafladda lagu dhigayo. Qiyaastii 4 hektar oo dhul beereed ah ayaa la qoday loona wareejiyey goobta. George Trevor, ubaxa caanka ku ah magaalada Versailles oo laga soo rarayo qaaradda Yurub. Sannadahaasi lama-degaanka waxaa ka buuxay abeesooyinka sunta ah iyo hanqarayaal macnaheedu yahay inay dhimasho keeni karaan ciidda ay qarinayaan. Sidaa darteed, si loo siiyo badbaadada lagama maarmaanka u ah martidiisa ku sugan munaasabaddan, ayuu Shah amar ku bixiyey in laga takhaluso kiimika sun ah lagu buufiyo xasharaadka ku nool 30 kiiloomitir oo laba jibaaran. Xitaa hawshaas markii lagu guda jiray ayaa waxaa la helay noocyo badan oo xamaaratooyin oon hore loogu aqoonin, kuwaasi oo ay jaamacaduhu ku sameeyeen cilmi baadhis. Si loo sameeyo kayntan cusub ee macmalka, Shah wuxuu dalbaday 50,000 oo shimbirood in laga keeno qaaradda Yurub, waxaana ku sii daayay qiyaastii dhul dhan 20,000 oo shimbirood ayaa laga keenay dalkaasi Isbayn, kuwaasi oo badankooda ay dhinteen maalmo yar gudahood dabeecadda adag ee oomanaha awgeed. Dhulka heerkulkiisu aad u sarreeyo ilaa 40 darajo uu gaadhayo. Shah wuxuu sidoo kale ka dhisay lama-degaanka magaalo qalabaysan. Badanaa dhacdadan oo kale waxaad filan kartaa inaad aragto qaar ka mid ah farshaxanno maxalli ah ama farsamayaqaano maxalli ah qurxinta goobaha gacan ka geysta. Markii ujeeddada xafladdan oo kale in la muujiyo weynaanta dalka Iiraan, laakiin Shah wuxuu ahaa nin dulma oo aan ku kalsoonayn farshaxanada waddankiisa. Sidaa darteed, wuxuu dalbaday farsamayaqaano iyo shirkado laga leeyahay qaaradda Yurub si loo dhiso magaaladan hawaabista ah ee boqortooyada. Shah wuxuu adeegsaday shirkadda caanka ah ee Faransiiska Henderson oo la timid qorshe lagu dhisayo 100 taandhooyin oo la sameynayo martida ka qayb galaysa. Mid kasta oo ka mid ah taandhooyinkan waxay ka koobnayd 2 qol, 2 suuli, qolka fadhiga, iyo jiko uu ku sugan yahay dabakh caalami ah, iyo madalabyo la heli karo saacad kastaba. Boqolaal farshaxanno Faransiis ah ayaa ku sugnaa muddo 1 sano ah oo ka horreysay maalintaas munaasabadda si ay u qurxiyaan goobta lagu qabanayo xafladdan. Si loo badbaadiyo loona kariyo cunto dhadhankeedu sarreeyo, Shah Pahlavi wuxuu magacaabay guddi qiimeyn ku soo samaysa hodheellada adduunka ugu cuntada fiican. Guddigani waxay go'aan ku gaadheen hodheelka Maxim ee ku yaallay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, waxaana la sameeyey feejignaan dheeraad ah markii heshiiska lala galay shirkaddan. Shirkaddan ayaa guud ahaan u soo guurtay dalka Iiraan, gaar ahaan goobta xafladda lagu qabanayay. Maximum ayaa laga xidhay magaalada Paris toddobaad ka hor taariikhda xafladda weyn, iyadoo dhammaan qalabkeedii u dirtay iyo kuugaggii cuntada shaqaalaha kale Takhtamshiid oo ah halka lagu qabanayo xafladdan si loogu diyaargaroobo munaasabadda. 18 oo cunto ah ayaa laga soo dhoofiyey Paris oo ay ka mid yihiin 500,000 beeda, 2,700 oo kiilogaraam oo lo' ah, 1,280 kiilogaraam oo hilibka digaaga ah, iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaana soo noqday hodheelkii caanka ahaa ee Max Bluff si uu dusha uga ilaaliyo xafladdan. Markii hore waxaa qarsoodi ahaa liiska, markii dambe ayaa la soo gudbiyey warbaahinta, taasoo dhalisay fadeexad, iyada oo 100 tan oo badeecado walxa ah laga keenay meelo kala duwan oo adduunka ah lana geeyey goobta cidlada ah. Saadku wuxuu ahaa mid laga warwarsanaa inay dhibaato ka dhacdo. Si looga gudbo haddana loona fududeeyo habka alaabada loogu rarayo goobta, Shah wuxuu ka dhisay goobta madaar gaar ah oo ka bilaabma gobolka Siraaj oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jirta Takhtamshiid. Sidoo kale wuxuu dhisay waddo weyn oo isku xidha labada goobood, waxaanu ku aaminay keenista iyo gelitaanka howlahaasi ciidamada cirka. Muddo ku dhow 6 bilood ayay ciidamada cirku isaga dab qaadayeen Faransiiska iyo dalka Iiraan si ay u soo qaadaan badeecadaha lagama maarmaanka u ah iyo waxyaabaha looga baahanyahay goobtaas. Wadar dhan 30 tan oo ah qalabka wax lagu karsado ayaa laga keenay magaalada Paris si loogu adeego makhaayadda Maxim oo keliya, si loona diyaariyo cuntada. Intii lagu guda jiray maalmaha munaasabadda, diyaaradaha ciidamada cirka ayaa sii waday inay goobta keenaan baraf aad u waaweyn, maadaama goobtu ay tahay goob kuleyl ah. Haddaynu eegno qaybta ugu muhiimsan ee howlgalkan ayaa ahaa dhinaca amniga, si loo damaanad qaado marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabaddan, loona sugo ammaankeeda, iyadoo waqtigaasi dalka Iiraan ay dowladdiisu ka warwarsanayd in dadka mucaaradkii ay rabshado iyo qalaaqal ka bixiyaan munaasabaddan. Waxaana la tuhunsanaa dagaalyahanada iyo maleeshiyaadka qaar inay isku dayaan inay kharbadaan xafladda. Sidaas darteed, Shah
wuxuu qaybiyey bilayskii qarsoodiga ahaa iyo askartiisa oo tiradoodu ay gaadhaysay 65,000 oo ka mid ah si ay u ilaaliyaan martidiisa oo aan ka badnayn dhowr boqol oo qof. Goob baadhitaan ayaana la dhigay dhowr kiimitirba maadaama halista simowga cuntada. Sidoo kale ay jirtay hoolka diyaafadda ayaa laga dhigay meesha ugu ilaalada badan maadaama in yar loo ogolaa inay galaan. Cunto kariyayaasha iyo adeegayaasha ayaa la hubin jiray xilliyo kala duwan. Suxuun aad u weyn waxaa la keenay seerisyo adeegayaal dheeri ah oo laga keenay dalka Switzerland. Waxay u muuqataa in tani aanay ku filayn in lagu qanciyo Shah, sidaas darteed wuxuu hore u sii waday ama xidhay xuduudaha dowladda Iiraan. Sababta xafladdan ayaa ahayd mid aad loogu jecel yahay lacag tiro badan oo uu ku bixiyey kharash gareeyey faafinta oo keliya maadaama Shah uu saxeexay qandaraasyo telefishinada laga leeyahay wadamada dibadda inay si toos ah u sii daayaan dhacdadan daawadayaasha ajaanibka ah. Golaha filimada qaranka ee Iiraan ayaana agaasimaha xil saaray inay soo ururiyaan shaqaale sameeya filimo dhacdadaasi ku saabsan iyada oo qaybta Ingiriiska loogu magac daray ololkii Bershiya. Jilaaga Hollywood-ka ahna agaasimaha shirkadda Orson Welles ayaa isku raacay in looga sheekeeyo faallooyin qaybta af Ingiriisiga ee filimka uu qoray. Welles wuxuu codsaday in Shah uu maalgeliyo filim gaar ah oo ku saabsan dhacdadan. Sidaan hore uga soo sheegnay, wax walba waxaa kormeerayay xirfadlayaal caalami ah, wuxuuna Shah qorsheeyey inuu nuqullada filimka u diro sinimooyinka iyo tiyaatarada adduunka oo dhan si loogu soo bandhigo. Safaaradihiisa adduunka ayuu Shah ku amray inay qabtaan abaabulaan xaflado, shirar, aqoon-isweydaarsiyo, hawlo kale oo dhaqameed si loogu sii jiidiyo dareenka beesha caalamka munaasabadda weyn. Buugaag ku saabsan Iiraan ayaa la daabacay laguna turjumay nuqullo kala duwan oo ku baxay luqadaha caalamiga ah si dhacdadan loogu gaarsiiyo adduunyada, iyadoo munaasabaddan loo diyaar garoobayay muddo 13 bilood ah. Gabagabadii taariikhda xafladda, waxay wasaaradda beeraha ee dalkaasi lagu amray in dhowr hektar oo geedo yaryar ah lagu beero hareeraha waddada laamiga ah iyo tan cusub ee cagta ee la sameeyey ee goobta lagu qabanayo xafladda, si loo iftiimiyo waddada isku xidha 50 kiiloomitir oo ka bilaabanta Shiraz ilaa iyo magaalada Takhshamjid. Habeenkii, shirkadda shidaalka qaranka ee Iiraan waxay shiday laambado lagu quudiyo foostooyin shidaal ah. Koox ka mid ah la dhigay 100 mitirba. Wasaaradda dalxiiska waxay sidaas ka dhistay 2 hudheel oo cusub, waxayna u magacowday Kairos Darish. Hudheel kastana wuxuu lahaa awood ahaan inuu qaado 150 qol. Labada hudheelna waxay ahaayeen in la dejiyo martida inta aanay gaadhin. Qayb kasta oo ka mid ah magaaladan teendhada ah ee boqortooyada ayaa si taxaddar leh loo qaabeeyey si uu martidu u dareento deganaansho iyo boqornimo. Qalabka guryaha lagu qurxiyey waxaa diyaariyey qaab farshaxanimo raaxo leh. Sidoo kale, dadka ka faallooda u diyaargarowga munaasabadda, wargeyska Mareykanka ayaa qoray markii uu Shah abaabulay xaflad, cirku waa xadka, yacni ma laha xuduud diyaargarowga xafladdani. Dharka xariirta ee lagu sameeyey dalka Iiraan ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu qurxiyey. Maalintii 14 Oktoobar 1971 subaxnimadii, maalintii ugu horreysay ee dabaaldegga warbaahinta ayaa kusoo degtay adduunka oo dhan ilaa magaalada qadiimiga ah ee Persepolis si ay markhaati uga noqdaan munaasabaddan loogu ballan qaaday xafladda. Bilowgii, dadku rajo wanaagsan maysan qabin maadaama aanay sahlanayn in la aamino in Iiraan qaban karto xaflad sidan u ballaaran sida ay ballan qaaday. Laakiin imaatinka diyaarad walba, liiska shakhsiyaadka dadka aadka u muhiimka ah ayaa tartiib tartiib u kobcayay. Riyadiina waxay bilaabantay inay yeelato rajo macquul ah. Labadii dhinac ee adduunka ku loolamayay, reer galbeedka iyo midowgii Sofiyeeti, ayaa mid kastaaba isku dayay inuu inta karaankiisa ka muuqdo saameyntiisa. Madaxweyne Nixon-kii dalka Mareykanka oo doonayay inuu ka qayb galo ayaa hay'adda sirdoonka Mareykanku ay u sheegeen inaanay sugnayn ammaanka goobtu, waxaana u diray ergey isaga ka socday. Midowga Sofiyeeti, dowladdu waxay u diratay wakiil iyaga ka socda, waxaa laakiin si shakhsi ah uga qayb galay Australia, Finland, Switzerland way matalayeen madaxweynayaashoodu, halka Faransiiska, Talyaaniga, Koonfurta Kuuriya iyo Switzerland ay matalayeen ra'iisul wasaareyaashoodu. Qaar ka mid ah martidii lagu marti qaaday munaasabaddan ayaan ka soo qayb galin maadaama uu ahaa boqor Shah in loo aqoonsan yahay keligii taliye. Shah wuxuu shakhsiyan u raray magaalada Shiraz si uu u soo dhoweeyo martida ugu muhiimsan. Sidoo kale, wuxuu amar ku bixiyey in la isticmaalo in ka badan 250 baabuurta ugu qaalisan waqtiga ee limousines oo aan xabado karin, si markiiba loogu raro garoonka diyaaradaha Shiraz loona tago goobta uu dabaaldegu ka dhacayo. Dabaaldegu wuxuu ku bilaabmay xaflado fudud oo lagu qabtay qabrigii Kairos kii weynaa ee aasaasay boqortooyada Persia. Wax yar ka hor fiidkii, Shah oo ay weheliyaan Empress Farah iyo Amir Reza ayaa xidhay dharkii boqortooyada, waxaana jeediyey hadal ammaan uu u soo jeediyey boqorkii aasaasay boqortooyada Iiraan. Khubarada ayaa tababaro qaadanayay si ay u maamulaan hawshan adag intii aanay hawsha bilaabin, gaar ahaan tababarada sida daqiiqado gudahood loogu dhigo burcadda iyo dadka wax rabsha looga hortago. Kooxo khubaro ah oo ku xeel dheer dharka naqshadaynaya ayaa iyaguna loogu yeedhay magaalada Paris si ay ula wareegaan hawsha. Cuntada waxaa loo adeegsaday
miis dhererkiisu dhan yahay 70 mitir oo qaabka maska u qalqallooca, iyada oo dhammaan ka soo qaybgalayaashiina ay fadhiisteen. Dhinac ka mid ah 125 haweena ayaa in ka badan 6 bilood shaqo adag ka hayay xararka daboolka miiskan. Marti kale ay ka mid ahaayeen safiirro weheliya madaxda dowladuhuna waxay fadhiisteen koox koox 12 miis oo yaryar. Tani waa markii ugu horreysay taariikhda ee madax kala duwan oo ka socota dalal kala duwan iyo fikrado kala gedisan ay isugu yimaadaan hal dhacdo oo dhaqameed, iyagoo munaasabadan ay isu keentay shuuciyiin, boqorro, gumaystayaashii hore, dimuqraadiyaal, iyagoo isbarbar fadhiya midba midka kale uu eegayo wejigiisa. Qaar ka mid ah martida kasoo qaybgala munaasabadan ayaa ku metelay inuu yahay filimkii James Bond. Martida qaar ayaa markii dambe ku sifeeyey jawiga inuu la mid yahay muuqaal laga duubay filimkii James Bond. Haddaanu soo noqono miiska diyaafadda, uma baahnid inaad tidhaahdo waxaa ku jiray suxuunta iyo cuntooyinka ugu macaan waqtigaas. Sidaas darteed, waxaa lagu soo bandhigay 2 luqadood, Faransiiska iyo Eeraan. 600 oo qof oo marti ah ayaa lagu casuumay goobta, iyadoo casuumadaasina socotay muddo 6 saacadood ah. Arrintan ayaa gashay casho sharaf rasmi ah oo dheer uguna raaxada badneyd adduunka, taasoo ay aqoonsatay buugga Guinness Rikoodhka Adduunka. Maadaama Iiraan ay ahayd dal Islaami ah, lama jeclaysanin khamriga xaddiga badan ee lagu isticmaalay goobtaas. Wax walba iyo qof walba uu joogay goobtaas, wax kasta oo aad qiyaasi karto ayaa goobjoog ahaa. Haddii wax ka maqnaayeenna waxay ahaayeen Iiraaniyiinta laftooda. Si loo ilaaliyo gaar ahaan Shah muu casuumin wasiiradiisa, waxaa keliya goobjoog ka ahaa koox yar oo saraakiil Iiraaniyiin ah. Maalintii labaad ee munaasabadda ee dabaaldegga ayaa ka bilaabantay dhacdadii ugu weyneyd, iyada oo martidu isugu soo rareen dhul ballaadhan oo lama-degaan ah si ay goobjoog uga noqdaan boqornimada labaad iyo haybadda boqortooyada Bershiya. Markii ay ahayd dhalashadii 2500 sano ka hor, 1724 askari oo ay weheliyaan boqolaal faras iyo geel fara badan ayaa reer Iiraan ah oo socod ku maray waxa loo yaqaano socodkii ugu weynaa ee taariikhda, iyaga oo metelaya ciidamadii boqortooyada. Shah wuxuu isku dayay inuu sameeyo wax wal oo awooddiisa ah si uu u soo nooleeyo taariikhdaas, sida dharka, timaha, muuqaalka gawaarida furan ee dahabiga ah, hubka, maraakiibta dagaalka, iyo astaamaha rasmiga ah ee la sameeyey kadib markii si farshaxanimo ah oo xeel dheer loo naqshadeeyey, iyadoo la waafajinayo taariikhda hore. Codadka xiisaha leh ee taliyayaasha Bershiya ee kala duwanaa ay ka qayb galeen ama salaanta ku bixinayeen ayaa ahaa qaar la xasuusto. Gelinkii dambe isla habeenkaas waxaa la qorsheeyey soo bandhigidda rashka cajiibka ah ee la yaabka ku noqotay dhagaystayaasha oo markii hore argagax, maadaama ay rumaysan yihiin in goobta uu ka jiro weerar argagixiso. Subaxnimadii xigtay, qaar badan oo ka mid ah martida VIP-da ee Shah ayaa ka baxay magaalada Tajmuudin. Qof kasta oo ku hadhayna waxaa loo wareejinayay garoonka diyaaradaha Shiraz, waxaana loo wareejinayay caasimadda Teheraan. Xaaladuna waxay ku dhammaatay munaasabadda loo qorsheeyey in lagu qabto caasimadda Teheraan, ay ku jiraan caleemo-saarka Shah Tower oo lagu sifeeyo boqorka. Haddaba natiijadii ugu dambeysay ee ka dhalatay caasimaddan ugu ballaadhan ayaa noqotay, maadaama shacbiga reer Iiraan ay haysteen dhibaato iyo cadaadis fara badan, isla markaana kharashkii iyo hantida ay lahayd ummaddu uu ku casuumay saaxiibadiisa kale ee caalamiga ah, in bulshada dalka Iiraan ay bilaabaan kacdoon ay kaga soo horjeedaan, oo natiijadiisii noqotay kacaanka Islaamka dalka Iiraan. Waxaana halkaa lagu soo afjaray boqortooyadii jirtay 2500 sannadood. 3 imbaradoriyadood oo sheeganaya inay yihiin imbaradoriyadaha ama boqortooyinka adduunyada ugu da'da weyn oo ka soo qayb galay munaasabadan, oo kala ahaa boqorkii Itoobiya Haile Selassie, boqorkii Giriigga, iyo boqorka dalka Iiraan, ayaa isla 10 sano gudahood aan ka dambaynin boqortooyadaas oo burburay, iyada oo lagu tilmaamay inay tahay cashadii ugu dambeysay ee boqorrada. Sidaa daraaddeed, xafladda ugu qaalisan taariikhda aadamaha ayaa ahayd tii ugu dambeysay oo abaabulo boqor Shah, maadaama uu ku baxay boqortooyadiisii iyo dowladdiisii.